kadib munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayna ka soo qayb galeen nabadoono odayaasha dhaqanka waxgaradka aqoon-yahanada iyo dhalinyarada ku abtirsata beelweynta cali madaxweyne kana dhacday degmada Maxaas ayaa loogu doortay nabadoon Cabdi Muumin Guuleed inuu noqdo nabadoonka guud ee beelweynta cali madaxweyne ee Xawaadle. nabadoonka cusub ee beelweynta cali madaxweyne nabadoon Cabdi Muumin Guuleed ayaa dadka waxa ay ku tilmaamaan inuu yahay shaqsi leh hogaamin aqoon iyo sidoo kale waayo aragnimo isla markaana jecel midnimada iyo horumarka beesha. nabadoon Cabdi Muumin Guuleed ayaa bedelay Allah u naxariistay nabadoon Cilmi Hagar Guure oo 29 Sebtembar sanadkii tagay ee 2022 ku shahiiday dagaal kooxda argagixisada looga saaray iyo qaybo kamid ah gobolka Hiiraan oo weli socda. qaar ka mid ah nabadoonada dhaqanka beesha cali madaxweyne ayaa munaasabada ka hadlay waxayna guul iyo horumar u rajeeyeen nabadoonka cusub ee beelweynta cali madaxweyne. muddo sanadii xoogaa ah inaan wax isla wadnay waxaan aaminsanahay annagoon isaga xumaan amuuro waqtigeedaa la yiri maanta inay tahay baan aaminsanahay. ilaahay idankiis walaaluhu wax islama diidanayn kala aragti unbaa la ahaay kala aragtidiina xoogaa waa laysu soo dhoweeyey tii lagu najaxa ilaahay inuu ka dhigane aan raalli ku ahaano ilaaha ka dhigi doona. waxaan rabnaa marka wixii aan sugaynay waxay ahaayeen nabadoon intaas waxaa la lahay hoggaan cali madaxweyne ha la doorto ha la sheego ha la magacaabo cali wada magacaabane intaasaa la lahay war anigaa u daran iyo anigaa u daran intaasna waa la isweydiisanayay. dadkii marka wax ka dhaxeeyaan unbaa wax isweydiista laba dhaxal isku haysata haddaa aragto maxaad isubtiin lama yiraa. dadkii wax ka dhaxeeyaana xaaladdaas soo waday maantay soo gaartay. cali madaxweyne ninkii u qaba inuu qabiil yahay ama jifo yahay cali madaxweyne waa qaran ninkii loo garto oo inuu mas-uuliyaddaa qaado asaguna u diyaara calina u garto inuu qaran maamula ha aamino iji iyo lafii waaweynaa intii ka dhaxaysa inuu nabadoon u yahay ha aamino dalka iyo dibadda inuu nabadoon u yahay ha aamino caqligiisa iyo xooggiisa iyo xoolihiisa inuu isku dara ha aamino. intaasu marna waa iga dardaaran marna waa taladii ugu horreysay. annagu haddii aan nahay jifadii ayaduna wax ka codsatay musharaxana laheed oo cali wax ka codsanaysay waxaan u garannay oo aan u tanasulnay curadkii walaalaheen nahay codsiga nagala hormaray asagaan u garannay wixii dardaaruhuna waa nooga dambaynaan. juhdigii wakhtigii la geliyey muwaafaqada maanta taalo rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan. buuro dhaadheeraa loo fuulay buuro dhaadheeraa looga soo degay in la helo muwaafaqada iyo midnimada beesha cali madaxweyne in maanta la helo tiir birahoo lagu tiirsado in maanta la helo ninkii horkici lahay beesha cali madaxweyne. laba cali hadday iswarsatay waxaa ka soo baxay walaalahood curadka ah oo ka weynoo maxamed cali codsigoodii inay aqbalaan. codsigii maxamed cali yaa la aqbalay waa la yeelay. waxaanan ku daraynaa niman la tilmaamo maaha ninkay qaadi doonaana nin la tilmaamo maaha. cali shareecada ku dhaqan ku leenaha marka hore marka xigtana cali dagaalan loo idlayn oon laysla ogeyn oon laga tashan hanaga gelinaan ku leenaha. ma hadda labaad waxaan u celinaynaa labadii walaal ee naga yaraa ee cali madaxweyne waxyar hadalka labadii walaal ee naga yaraa ee cali madaxweyne ee codsigii maxamed cali ee curadkii cali madaxweyne ahaa codsigoodii ajiibay gartay markay joojiyeen oo jiifiyeen u gartay inay codsigaas tanasulaadna u sameeyaan kuna xurmeeyaan
garashada ilaahay kama qaada ayaan leenahay labada caliyow hambal yaan idin leenahay adinkana waa idin mahad celinaynaa وكا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر xildhibaan cabdulqaadir maxamuud oo bakar dhagaweyne oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa dhankiisa isna munaasabada ka hadlay salaan bacdigeed maanta waa maalin weyn waa maalintii aan guulaysanay lagu duubtay nabadoonka halkan gugushii waxa ka soo baxay in beelweynta cali madaxweyne nabadoonkooda ay duubteen waxaan la Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar annagana ilaahay anaga dhiga qoladii waa anfaco waxaan leeyahay guul waxaan leeyahay horumar waxaan leeyahay hiiraan aad waxaad u tihiin difaac Soomaaliya difaac u tihiin maanta Soomaali midowday waxaan leeyahay waa beel weyn horaa loo soo insha Allah cali madaxweyne asagoo ul iyo fara isagoon uqdadi dhaxaalin isagoo midaysan isagoo hal ujeedda leh ayuu nabadoonkan Abdi Yuusuf Cali nabadoon waxaan rajaynaynaa cidda ayadoo isku duwanaa lagu dhiibay ayadoo isku duwanaan kaa tugaynaa waa mahadsantahay Allahu akbar waa mahadsantahay cali madaxweyne midaha lagu dhiibay waxaana ka rajaynaynaa Soomaali midey caadil baatee saddexdo cali dhalay haday ana wada cabaan saddexdo cali dhalay haday ana wada cabaan aramaxaased hadii ay ciyaartuntaan aramaxaased hadii ay ciyaartuntaan caloosha isku wada furaan cilki waayday caloosha isku wada furaan cilki waayday nabadoonka cusub ee beelweynta cali madaxweyne nabadoon cabdi muumin guuleed ayaa sanadkii 1964 ku dhashay magaala madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne waxaana sidoo kale uu ku soo aaday xilli gobolka uu ka socdo dagaal ka dhan ah argagixisada sidoo kale ay jiraan xaalado dhanka siyaasadda ah waxaana looga fadhiyaa nabadoon cabdi muumin guuleed midnimada beesha cali madaxweyne inuu beesha uu ku hogaamiyo horumar iyo hiigsi dheer nabadoon cabdi muumin guuleed nabadoonka cusub ee beelweynta cali madaxweyne ayaa dhankiisa fagaaro ku yaala degmada Maxaas bahda warbaahinta kula hadlay الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد دمان وحن أمهد علينا ضلني يرضى وضياشة دمان قبلها قيمها بدن كل جين أرديدا سراكيشة دمان حلبانا ذا عد كستوى أمهد علينا كسوق القلياشة شركية قوشة guulaysta waa guulaysateen waa mahadsantihiin annagana ilaahay maaragtay kuwii wax isla qabsada oo wanaag iyo sharaf iyo cisag iyo wanaag wax ku wada qabsada Allah naga dhigo soo dhawaada waa mahadsantihiin waqtiga nagu yar raalina ahaada xaqaan iskugu tagaynaa wabillahi tawfiiq salaam maxamed ibraahim siyaad telefishinka caalamiga ah ee Hiiraan Bile degmada Maxaas